khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa soo bilowday markii uu heshiis saddex geesooda dhex maray shirkadda DP World, Somaliland iyo dowladda Itoobiya. Heshiiskaasi ayaa salka ku hayay sida loo qaybsanayo dakhliga ka soo xaroonaya dekedda magaalada Berbera. intaasi kadib dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab hadal ah ka bixisay heshiiskaas iyadoo ku tilmaamtay arrintaasi mid lagu xadgudbayo madax bannaanideeda. waxa ay dowladda warqad cabasho ah u dirtay ururka jaamacadda Carabta waxaana marba marka ka dambeysay sii xumaanayay xiriirka ka dhaxeeya labada dowladood. 8 bishan garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan waxaa lagu qabtay boorsooyin ay ku jiraan lacag la sheegay in laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. waxaa ka dhashay muran badan lacagtaasi oo ay ugu dambeyntii dowladdu la wareegtay. haddaba khilaafkan siyaasadeed ee Imaaraadka iyo Soomaaliya soo kala dhaxgalay saameynta uu ku keeni karo xiriirkooda waxa inoo sharxaya safiir hore Cabdisalaan Dhabarcad. haddii qofku inuu ku xumeeyo uu go'aansado waa wax gaar ah, laakiin Soomaalidu Imaaraadka waa saaxiib muddo dheer, waa dadka isugu dhow bay ahaayeen Soomaaliya iyo Imaaraadku. Sheekh Saayid Al Nahyan laga soo bilaabo dalka yimid waa loo tagi jiray, walaalay ahaayeen, haddana walaalihii bay noo yihiin. hadday iyagu go'aansan inay baabi'iyaan waa wax kale, laakiin Soomaaliya xaggeeda ma ka baaba'ayo. lacagtu adduunka waxa ka dhaxeeya maanta waxa jira midna idinkoo waa la socotaan waxaan la yiraahdo lacag isweydaarintu dhibaatay leedahay. yacni dal xor ah oo walaalahaaya diyaarad lacag kama soo dishan kartid oo aan la sheegin. haddii la sheego dee xalun bay ahaan lahayd. markii la qabto waxaan aragnana waa la tagayna maya fursad bay haysteen ay dib ula noqdaan. haddii la yidhi waxaan ma soconayaan marka ma ay yeelin, wixii baa la arkay. marka anigu sida nidaamku adduunku yahay waa in loo hambaliyeeyaa nimankii gutay inay halkaa mariyaan oo lacagta inta qabtaan markay arkaan inay bankiga geeyeen. waa meeshii la rabay marka hore in loo soo diro. inkastoo Imaaraadku Soomaaliya ka taageerayay dhinaca tababaridda ciidamada iyo dib u dhiska xarumaha danta guud qaarkood, haddana waxaa taasi barbar socotay dan gaar ah oo ay ka lahaayeen waddanka sida uu qabo aqoon-yahan Xasan Sheekh oo inoo waramay. Imaaraad kaliya ma ah. Imaaraad waa laga dambeeyaa marka la macnaa waxaan ka wadaa ayaga nafsadooda geopolitics ay qayb ka yihiin. markii geopolitics waxa ku xiran oo dhan ay ku xiran yihiin. marka aad la macaamiltamaysa Qatar iyo arrintan socoto ogsooni waxaad la macaamiltamaysaa Masar. markaad la macaamiltamaysa Masar waxaad ogaataa waxaad la macaamiltamaysaa Sacuudi Carabiya markaad la macaamiltamaysa waxaad ogaataa waxaad la macaamiltamaysaa America iyo Ingiriis iyo Yurub oo dhan iyo wixii ay ka dambeeyay iga calaaqo leh. marka adduunyadana nin sida uu rabo sameyn kara ma jiro. xarge badan ay isku xiran, masaalix fara badan ay isku xiran, waxyaabo fara badan oo tanaaqudaad ah iyo contradiction oo iska hor imaanaya ay wax u baahan yihiin in u yeelano fiiro iyo faham oo gaar ahaan arrinkani waa geopolitics ma aha arrin fudud ma aha. marka waxaan u soo jeedinayaa madaxda Soomaalidu inay ka fikiraan arrinkan, shacbiga Soomaaliduna inaynan caadifad iyo emotion oo na qaadin. si kastaba lama ogo halka uu ku dambeyn doono xiriirkan aan wanaagsanayn ee labada dal u dhaxeeya, waxaana aqoon-yahanada ay sheegayaan in Soomaaliya ay tahay goob ay ku hardamayaan awoodo waaweyn. Munassar Maxamed Cabdi, Universal TV, Muqdisho.